iyo dinto lagu qaraabtay iyo dinto lagu qaraabtay khabar lagu beer wasani nagaray wamidan illa allah hayne illa allah hayne wasani nagaray wamidan illa allah hayne illa allah hayne somali tosaka wa kalimati 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 dowlada waxaa safka hore fadhiyaad aragtaan ka qayb qaadanaya shakhsiyaadka kale ah carfaad cabdullaahi cabdi oo ah program officerka student midowga ardayda gobolka banaadir oo iminkaba markuu ka yimid magaalada muqdisho goobjoogna u ahaa dhacdadii ka dhacday gobolka banaadir xarunta hargaha iyo samaha ardayda badanna lagu xasuuqay horena dhacdadii kasii horreysay ardayda hotel sham bulbulayna isla waqtigaasna muqdisho joogay sidoo kale waxaa iyana nagala qayb qaadanaysa luul macalin cabdullaahi aad aragtaan gabadha nala fadhida oo ah vice chairmanka ardayda jaamacadda east lawrence sidoo kale waxaa barbarkeyga fadhiya bidix axmed xasan yuusuf xamse cafan wuxuu isagana yahay gudoomiyaha ardayda jaamacadda east lawrence sidoo kale waxaa isna barbarkeyga bidix fadhiya aad aragtaan maxamuud cabdiraxmaan mohamed oo ka mid ah ardayda jaamacadda sikim waxa weeye raalli ahaada gudoomiyaha jaamacadda sikim university haddaan qabda cafur raalli ahaada okay sidoo kale sheekh cabdifataax maxamuud buleed waxuu ka mid yahay culimooyinka soomaaliyeed kuna nool waddanka uganda gaar ahaan magaalada kampala in badanna wuxuu ka warhayay dhacdooyinka ka dhacay waddanka soomaaliya gaar ahaan dhibaatooyinka loo geysanaya ardayda dooda sidaasay nagu furmaysaa waxaana ku bilaabayaa carfaad cabdullaahi cali carfaad waxaad ka mid ahayd dadkii muqdisho joogay xilligii dhibaatada ay dhacaysay waxgalku ah bulshada soomaaliyeed السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا سلام يا دمان ولا لها شرفت اللي كسر قبل دودا. أنت كذب وعن اللي هاي الله هذي كسي أبال سنة usocotay inaan maskaxdiina dhalinsaan isla markaana aad ka soo saartaan wax shacabka iyo ardayda Soomaaliyeed dhanba inta kadib haddaan u gudagalo su-aasha jawaabteeda maxaa sababay beegsiga ama ugaarsiga lagu hayo ardayda Soomaaliyeed run ahaantii waxaan dareemi karnaa dalkeena Soomaaliya khayr fara badan ayaa laga baabaashay hadday ahaan lahayd dhaqaalaha wax-soo-saarka dalka waxbarashada iyo adeega bulshada intaa waxaa dheer burbur lagu hayo maskaxda inta aan soo sheego waxay ahayd wax la taaban karo waxaa dhinaca socda burbur oo maskaxiyan ah oo aan la taaban karin oo ay ka mid tahay waxyaabaha dhacaya inaysan ahayn wax maanta ujeedkooda uu yahay bilxaqiiqa markaan ka hadalno ugaarsiga lagu hayo ama waxa sababay waxaan dhihi karaa kow ujeedooyin fara badan oo dalka laga leeyahay waxaad dareemi kartaan dadkeenan waxaana dhalay waalidiinteenana maanta waxay kasii baxayaan ejkii waxgaradnimada waxa soo baxaya ee maanta wax baranaya ee dalka dibadiisa aadaya ee ka soo noqonaya
waa dad wax bartay oo arday waa dadkii dalkan samata bixin lahaa waxaan is leeyahay haddaan hadalkayga soo gaabsado sababta keenta in la beegsado ama la ugaarsado ama ay soo noqnoqdaan falalka noocan oo kale ah waa in la haqabtiraa waa in la dabargooyaa ama la ciribtiraa ruux Soomaali ah oo aqoon-yahan ah intaasaan kusoo kooba arrimahaasati aad ayadu maasantahay carfaad waxaa ka dhawaajiyey in ay tahay ujeedada loo bartilmaameysanaya aqoon-yahanka Soomaaliyeed ciribtir lagu hayo indhaha ummadda Soomaaliyeed waayo carfaad usoo laaban doonaa aan ku xujiyo luul macalin cabdullaahi luul sidoo kale su-aal aan rabno inaan doodan ku wadno waxay tahay saameyn intee laga ay kula yeelan kartaa qaraxyada iyo dhibaatooyinka loo geysanayo ardayda Soomaaliyeed jiilka hadda wax baranaya mustaqbalka waxbarasho ee ummadda Soomaaliyeed dhacdooyinka ka dhacay magaalada Muqdisho waa wax aad u xanuun badan xanuunna nagu reebay marka koowaad waxaan u tacsiyeynayaa ehelada ay ka baxeen iyo waalidiintii iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed dhamaankii Soomaaliyeed mustaqbalkii Soomaaliyeed wixii Soomaaliyeed oo la cirib gooyay haddana lagu guda jiro in la sii cirib gooyo taas tacsi ayaa looga dirayaa xanuunka ay nagu reebtay waa wax badan markoo waxa ay tahay mustaqbalka Soomaaliyeed oo soo korayo oo la niyad jabiyay hadda tacliintii ama waxbarashadii ayaa waxay noqotayba ardayka ahaan in lagu waarsado marka koowaad marka arday tahay oo aad joogtid meelaha dadku ay ku jiraan waxaa lagu leeyahay walaalkaan ugu soo biir nagala qayb qaado hawsha meesha ka socota haddii aad diidid laba mid waa inaad gaargooda inaad naftaada weysid haddii ilaahay kaa badbaadiyana waxbarashadaada aad sii wadatid fursad kale ayaa lagu eeganaya oo noloshaada ku sii wada haddii aad ka soo baxid wadankii aad banaanka ka timaadid sida halkan aan joogo oo nasiib ku yeeshay inaad wadanka banaankiisa aad ka baratid hanjabaad ayaa kaga socda sida hadda wararka soo baxaya oo leh qofkii ka hadla arrintaas inay meeshaas arda Soomaaliyeed ay ku la-atay isaga isu waa caddaan inay arda Soomaaliyeed ku la-atay waa caddaan inay waalid Soomaaliyeed ay ku dhinteen dad nolol maalmoodkooda higsanaya inay ku dhinteen waa waxaa ma ahan wax qarsoon marka effect weyn ayay ugu yeelatay qaas ahaan dhul ahaan waa mid aad ii saameysay dacdadii hore ka horreysay oo Shaam qayb ka mid ah ardayda isbitaalka ayaa ku dhimatay ilaahay u naxariisto tana sidoo kale qaybo badan oo ismaqaadaya wax kasoo gaareen marka saameyn weyn ay mustaqbalka Soomaaliyeed ay ku yeelan kartaa ama ay already ku yeelatay waa tahay ma dhacdo uruga leh in jiilka wax baranaya indhihii ummadda Soomaaliyeed ah aqoontii dadka ku baranayay in markasta targetka ay noqdaan waxaan ku joog wahayn dhacdooyin badan oo saas oo kale hor u soo dhacay haddii aan dadkii waddanka wax u bartay aqoontii u soo maray dhibaatada xooggan u soo maray haddii ay naqan lahaayeen saraakiishii ciidamada haddii ahaan lahaayeen aqoon-yahanadii dhaqaatiirtii guud ahaan waxaan la bartilmaamsanayo labaynayna waa mageyl dadkii lagu tilmaamay waayahay waa maqlaysay carfaad iyo luula qaabkay u dhigeen dooda oo ay yidhaahdeen waa ciribtir loola dan leeyahay aqoon-yahanka Soomaaliyeed waxaad ku bari lahayd Ibrahim بسم الله الرحمن الرحيم أنا مختار يا ربكم بتقولوا كيسلي أرضي الصومالية وحي قرحي كدعي مقدشو ونقول لي أرضي الصومالية وامتحان كنتيجة سكيسي scholarshipki iyo waalidiintoodii horta waa fal aad iyo aad u xun oo aan saameyn weyn leh in arday Soomaaliyeed oo dalka ku baran lahayd oo ah wixii dalka iyo waxyaabo badan in dhibaato loo geysto horta waa fal aad iyo aad u xun waana la cambaaraya waana la qaybsanaya waana ay saameynaysaa oo maadaama ay arday Soomaaliyeed intaa ka bacdi fikirka carfaad iyo لولا يا حسنا
أقول إن عربتريو وأنا عرض وكيف بلوصل قبل كريم واحد أرضي الصومالية عربتريو خاصة بالمد أي أدوار جوكتها والسكول هاي إن ضد كأقوي هنا ده ضد كأقوي برا لها معمول لها بريتولي إن عربتريو وعربتريو هذين قطور ضد أقوي هنا أو ضد investment تيجي تقدر كشانها وهرمر لها والفنون قدر كسر وساق لها وهذه يارد من عربتريو واحد لوجي هاي وعد كا أنا كده كم تاجر سنة محمد محصل وهذا أبي أسأله وحصلوا كوفر السياسيات وحصلوا وين أرضي الصومالية دي يردي الذي سنيو وأن الله قلنا وحبرتان سكموا قطع والربو إن أي دجالمان وقرية قطعان وضد شعب لا يا وكسر ضد كحون أرضي إني بريت ولا حبرته وفكرته ونسكح له ذيك سنة ضد كم مسكح له هيستا وحكوا في كل كلامي هيستا ضد كوي ضد كوحكة دمبية هذا ضد كأرض ضد كشوجة لكن معها ضد كبدو اللي مشوجة ضد كواحد ضد كأرض الصومالية دي بدأ تشوفها وحاول قنت هذه ضد ديس ضد كل لوانا وضد كيجي بان مركزة واحد نقطة وحاول ضد كأرض الصومالية المسكح لا يحد يعني يرتعن وحاول باقي يعني كدكتوري على القراص أو سنة ضد كله يفكر كله كمان فكر ضد كمي وضد سنة يا يعني مسكح ضد كحالا أو أي يوم دينه ذا بشر إسلام كحوي وادي أبغى ونصير ترى إن أرض الصومالية ما تا أي بشران لو كنا بحنا وادي أبغى وما صنتها محمود وتأ شعب فتح والمغلسة إن مقصري الجدة اللي قال لي هاي لا أنت أقول إن أنت هاي dadkii wax kale ku ahaaba wallaynayo inay tahay in indhaha laga tiro ummadda Soomaaliyeed بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين marka ugu horeysa waxaan tacsiinayaa ehladii qaraabadii ardaydii lagu xasuuqay magaalada Muqdisho ay ka geeriyoodeen inuu maaragtay ilaahay sabar khayr qaba ka siiyo bedel khayr qaba ilaahay ku bedelo sidaasaan marka hore waxaan ugu duceynayaa waa mudada iyo cabsida macnaha tiraayada soo gaartana waa la qabaa dhinaciga ka qabaa Soomaaliduna sidaas dhammaantood wada yihiin iyo dadka muslimiinta ah iyo cid kasta oo wax garada intaas ka gadaal ujeedada dadka dhibaatada geystay ay leeyihiin waa wax iska muuqda dadkaasi waxa ay leeyihiin ujeedadooda waxay tahay barnaamijka ay wataan cid alla ciddii aan ku taageerin waxay u arkayaan inay cadow ay yihiin ayaga cadow ku yihiin ilaahay cadow ku yihiin diinta islaamka ay cadow ku yihiin iyaguna waxay qaateen waa ujeeddo qaldan uma arko inay tahay arrin siyaasadeed waxaan u arkaa arrimaha ay samaynayaan dadkaasi inay u arkaan arrin diineed inay tahay oo ay ilaahay u dhowaanayaan marka waa sida ay sheeganayaan inay naftooda ku jaraan ay ku gooyaan dadka ulmageytada ah dhaqaatiirta iyo ardayda wax baranaysa iyo waalidiinta iyo oo dadkii xataa rasuulku markii uu dagaalada dirayo dadka u dirayo uu dhihi jiray yaan la taabanin uu kala dardaarmi jiray dadka markii dagaalka loo baxayo waxa loo bartilmaameedsanayo waxa weeye inay dadkaasi ay u aqoonsadeen dad ayagu ay u yaqaaneen inay gaala yihiin inay u aqoonsadeen dad wanaagsan ama dad dowlad ah ama dad maaragtay mas-uuliyiin ah marka horta marka ugu horeysa fikirka ugu weyn oo dhibaatada ah oo meesha yaalla waxay tahay waa gaalaysiinta anigu waxaan u arkaa Soomaalidu arrintaa ninkii caqli leh ninkii cilmi leh ninkii xoolo leh in la iska kaashado Soomaaliya waa la joogi jiray oo ummadda Soomaaliya waa wada noolaa jirtay iyagoon isdilaynin iyagoon isgaalaysiinaynin dhibka waxa keena waxay tahay waa takfiirinta la isgaalaysiinay oo la leeyahay dowladdu waa gaalo dhankaasay ka noqotay cid aan la cidii dowladda aqoonsato iyaduna waa gaalo marka dhibka halkaas buu ka yimid
anigu waxaan u arkaa marka in dhinaca laga cilaajiyo laguna daaweeyo arrin diin ah ilaa ninkii si qaldan baa diinkii u galay marka sidii saxda ahayd in loo sheego meelaha uu daliishanayo waxyaalaha uu ka hadlayo in si wanaagsan aan maaragtay u aragsiino u tusino anigu sidaasaan u arkaa waayahay aad ayaad mahadsantahay xamse waad maqlaysay qaabka dooda u dhacayso maxay tahay sababta ka dambeysa layntan insaan loo leynaya ardayda Soomaaliyeed iyo dadka wax gal ku ah ummadda Soomaaliyeed bismillahi rahmaani rahiim marka hore waxaan u tacseynayaa dhammaan eheladii iyo qaraabadii iyo cid kastoo Soomaaliyeed ay arrinkaas ku dhacday waxaan aaminsanahay qof kastoo Soomaaliyeed waa murugo ku dhacday u ah wax laga naxo u ah mustaqbal xumo aad u weyn waxaan leeyahay markaa ilaahay sabir iyo iimaan ka siiyo khaasatan ehelada ay ka dhashan dadkaasi guud ahaan ilaahay ummadda Soomaaliyeed oo wax ka siiyo sabir iyo iimaan intaas ka bacdi waxa la maxaa sababay yani waxa arrintan Soomaaliya yani ka socota maanta dalkeeni waxaan oran karaa anigu yani dadka la laynayo sida ognahay waxa weeyaan waa ardaygii iyo aqoon-yahankii iyo cid markaa qadiyadeedu saxda ahayd waxaa ku jirta ardayga waxaa jirta cid difaacda ardayga waxaa difaaca nadaam baa difaaca waxaa jirta hierarchies ku salaysan in la badbaadiyo ama la meel dhigo ardayga kan iyo systemkiisa uu wato waxaan markaan oran kari lahaa marka horeba kumbladi waxaan jirinba ardayga kani yani nadaam saxa oo u degan ee difaaci kara taas waxay keentay yani marka hore waxaa jirta waxaan nahay ummad qaran aynu ahayn sidaan ognahay qarankeenu waa burburay waxaa jirta ereyga qaran waa muraayad cid waliba ay ilaashanayso muraayad wadagtiina wax aad iyo aad u jilicsan probability ku jabi karto waxay tahay aad iyo aad bay flexible tahay waxaan aaminsanahay markaa anigu yani attentionka lagu ilaalin karo muraayad ayaa wixii 100% haddii 2% uu damac kaa galo waxaad ku burburin kartaa wax aad u yar waxaan aaminsanahay markaa ardaygaasi waxaan jirin cid difaac u ah waxaan la fakarka taakiga waxa weeye ardaygu waa ciddii birta noqon lahayd maskaxda iyo caqliga ummadda Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay markaa cid kasta oo markaa aan ku rabin noloshaada ayaa waxay cadow ku tahay dadka markaas waxgaradka u noqon doona birito in la ciribtiro taasaan waxaan arkaa aniga inay tahay inay sabab weyn u tahay wax walbana ay fududaysay ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay waxaa la yidhi nin la gumaysan jiray ayaa waxaa la yidhi iska bixi shaatiga uu bixiyey surwaalka bixi baa lagu bixiyey garamadda bixi baa lagu bixiyey buuyi baa lagu reebay waxaa la yidhi waa laga joojiyey waxaa la ka war haddii buuha lagaa bixin lahaa wuxuu yidhi waa meesha lagu dhiman lahaa daamistaas macnaha waxa weye qofka bini aadamka ay haddii uusan lahayn meel uu ka diiro ama uu ka damqado waxaa dhici karta in wax kasta si fudud cid waliba ay damqoon gasho waxaan aaminsanahay maanta sida cad ama muuqata xayawaanku waxaa la yidhi kuwa isku noocaa isma cunaan waxaan aaminsanahay marka la leeyahay maanta gacan sheegayna laynasa waxbaa fududeeyey cidda fududaysay maanta intaa ay sabab noqotay waxa weeyaan waa siyaasigeeni xumaaday inagoo agoon aan dareensanayn waxa iga maqan taasaan lagu soo koobaya waayahay axmed aad ayaad umahadsan tahay waan aragnay sababta iyo saameynta way ka hadleen inta badan ragga meeshan fadhiya waxayna ku saleeyeen in ujeeddadu ay tahay ciribtir la ciribtirayo aqoon-yahanka Soomaaliyeed birmageedyada dadka waxgal ku ah bulshada Soomaaliyeed haddaba iyadoo saas ay jirtaan ognahay gacantii labaad ay tahay waxaa dhib gaaraya ardayda Soomaaliyeed maxaa lagu gudbi karaa qaab sidaa ayaa lagu gudbi karaa dhibaatada soo noqotay markii labaad birmageedyada dhibka loo geysanayo ay nuulaan ku bilaabo security-ga inay ilaaliso dadka birmigeedyada ama bulshada Soomaaliyeed inta ekraankeeda oo caloosheeda ku jira hada labadii dhacdo ugu xanuunka badneed waxay ka dhacday
haddii aan arkayn ayadoo dadaal dheeraada wada hadday waxay dhaceen waa qancinayn laakiin waxa aan ku dhalinaynaa waxay tahay ma arkaysa checkpoint hadday dhigi lahayd meesha ay shirka ama markas ardada ay ku kulmayaan hadday meel ka banaana oo cidda soo galaysa la control lahaa ama baabuur ha ahaato ama qof ha ahaato waxbay ahaanay dadaal la sameeyay ahaan lahayd amaba ay advice badan ay ardada ay siin lahayd taa waa waxyaabaha ay gartay dowladda ku-meelgaarka ah annaguna ardayka ahaan aan ku dhalinayno waxaan nahay mustaqbalkii waddanka Soomaaliyeed waxaan nahay ubaxii waddanka Soomaaliyeed waxaan nahay future-ka dadkii maanta dadka waddanka isku hartamaya kuwii bedeli lahaa oo nabad iyo wanaag iyo horumar kusoo dabaali lahaa haddii annaga maanta nala dhameeyo oo nala waarsado yaa waddankii u maqan waa cidna dowladdu waxaa ka saaran ardada Soomaaliyeed inay ilgooni ku fiiriso waxa ugu xanuunka badan oo bulshada Soomaaliyeed bulsho ku nool ay soo gaarto waa ardada micnaha ardada ku fadhiso dowladdu way og tahay waa inay fiiro gooni ay iska saartaan dowladdu waa taa shacabka waxaa loo gudboon iyo ardada Soomaaliyeed inay isku xirmaan ay wadajir noqdaan gobol degmo wadan inay isku xirmaan dan ama training ama tala ahaan ay iswadaagsadaan sidii looga saari lahaa cadawga Soomaaliyeed ee maanta gumaadaya bulshada Soomaaliyeed iyo dhallaankeena iyo hooyooyinkeena iyo aabaheena iyo leaderskeena وتاي ما صنعت هيدول كسبب جلاش عم أبني المكان هذا قلب كسر وعنده قلب كلها بدين جواري هذا عن مركورة تحسب تلاقي أمة الصومالية مروا بيجوان يغطي ما جالس وحكوا عليه ولدين تاني عدديني نمام حلاي هاي إن الله وين إليه راجعون وما طلعنا على كثير قدم قال واحد حاسة وين إن لو عدد الصومالية طبعا أنا بفكر كي موجودين هاي وحيابا عن سنة وحكمية طبعا إن ذا كان إيه ذا ضدك على أقوانتي إني ما بيجي عندك وحبرتي صرفة قفك وحبرتي ميلا وحيابا عن حمر كذا شعور إني ينوح ديني مركب حسوا يا مركب وحيوب بعين ضد قلتان الفكرة كلا كشوات مركب قفك وحبرتي مركب وقولي ضدك على قبل هاي مكان واحد عام سنة هاي طبعا كسر بالله ودي سكاتنا إلا ودي إلا يحنا وحلا بابينا يا وضدك أقوي هذا هاي واي فكرة كده بيتم حياتها إن أرضي لديلو ذكي أقوانتا الحي لديلو طبعا محندرين كما إني فكرة أجنبي طبعا سيدا ورك أو رجلي طبعا متى كده سامين كويا شين طبعا لبعضنا العادي وحسامين كويا لك ذكي في ذلك صوتوا ذكي هديل لاي ذكي ديل سماه لاي ذكي ودنك بدالي لاي صوماليا بدالي لاي هذا يحمل يساعد توصل إلا من هذا مرة طبعا هدي لك وحبرت لنا في بيجي ماشي وحق اسمه هراي قفا وحبرا أو وحبا أفريقيا وحبا خوري كده نروح على أمسية طبعا ساميت وحكوا لك حتى ذاتك صوماليا يا شعب طبعا أنت مدة كله عن روائنا كهذا وثلاثة طبعا وحندرين كأن لبض وكلا قالوا إن ذاتك شعب كا وصوماليا كنا جار أهان مجال مبشر وأنا الحين إسكساران إيش بالباريان تنقل دولة وحالنا ما إني مسؤولية دي ذكر وحندرين كنا لبقى رحوا وين عدعي طبعا لبقى رحمة كمدا شام هو كدعي ضد أرضي على الله كان دولتي وحين مسؤولية كأهل أرضي المدرسة هو كانت وحين إلى امتحان نتيجة سنة معناها مسؤول من الأساس هذا طبعا وحان وده هذا هل دولة قف مثلا أول من وحبا طاي وعشاء وحان إيه راي وأول حذرك وفوجك في المستقبل وأنت تتكلم بالبالية دولة المسؤولية دي وأنت تقنية ذلك بالبالية طبعا أنت صار سوق هذا waxaan ka hadlayaa waxaan u tacsiyadaynayaa shilkii tiiraanyada lahaa ee naxdinta lahaa oo ka dhacay muqdisho oo loo geystay ardadii waxaan uga tacsiyadaynayaa qaraabadii ay ka dhinteen iyo eheladoodii iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel ay joogtaba waayo waa wax ku dhacay ummadda Soomaaliyeed oo dhan haddii aan u gudbo boontigayga oo ah xalka Soomaaliya muxuu ku jiraa ama looga bixi karaa dhibaatada hadda ka taagan waddanka waxaa looga bixi karaa qodobka koobaad oo ah in aynu horta fahanno diinteena islaamka iskuna baraarujino diinta islaamka meel kastoo aynu joogno haddaynu joogno dalka iyo haddaynu joogno dibadda maadiga kaliya xal ma noqonayo waxaa noqonaya diinta islaamka haddii la garab maro oo maadi ummadda u badatana wax xaloo imaanaya ما جرتوا وما مسلمين إنه هاي ما دام ما مسلمين إنه هاي دين الإسلام كان يسكو برارجينه إنه يدا حل كدينه أو دي بقول نقانه يدا حلينه أنت سامسوق بقولي السلام عليكم هذا المصطلح دولة هاي
السلام عليكم صلاة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كان تحسي ودرايا تلاقي له قرابتي يهلدي أي كدنتين تطفي وقصاره قاري شلكي كدعي وودن بي أفرتي بشي أكتوبر. وحنا كان تعسي iyo tiraayada u sii diraya qaraabadayda aniga khaasatan ee qosaysa oo ay ka mid yihiin dad aad iyo aad aan u jeclahay oo qaraabadaydii khaasatan dadkii soo koriyay ay ka mid yihiin ummadda Soomaaliyeedna arrintan waa mid ayaga dhan wada qosaysa sida ana aaminsanahay ilaa uu ka jiro qof asoo maskax gaar ah wata maahan. haddii aan u soo noqdo xalka iyo sidee wax loogu gaari karaa waxaan u malaynayaa oo aan wada ognahay u malaynayaa maahan waxaan wada ognahay dhammaanteen in Soomaaliya ay in badan oo hataa dadka dhalinyarada ardada meeshan ka mid ah meelaha aysan dhalanba ay ku jirtay jaawareer iyo dhibaato. taasna waxaan u malaynayaa wixii shisheed nooga imaanaya waa meeshoodii laakiin annaga unba isku fulinay maantayna waxaan u baahannahay oo dareensannahay inaan dulinimadaas aan dhinac iska saarno ee aanaan wada qaadano. sidee xalka loogu gudbi karaa? waxaa arrintan loogu gudbi karaa wadajir iyo wada shaqayn maadaama dadka Soomaaliyeed dhibaatadan ay mid wada taabata tahay in ay wada shaqeeyaan oo qof kasta uu duty-giisa iyo responsibility-ga mas'uuliyadda uu bulshada ku leeyahay uu dareemo. taas ayaa loogu gudbi karaa oo lagu wada shaqayn karaa. yaa kale oo aad iyo aad ayaan uga murgoonaynaa walaalaha ayaa dhibka soo gaaray. haddana soo laabto solutionka muxuu ku jira laba eray baan dhihi lahaa midna shacabka Soomaaliyeed midna dowladdeena. dowladda waxaan leeyahay mas'uuliyaddiina maxay ahayd si fiican ka soo baxa oo ximaayo khaasa siiya mujtamaca Soomaaliyeed gaar ahaan ardada. mar walba waxaa imaata Soomaaliya wufuud gaar ahaan Muqdisho caalami ah iyo kuwa maxalli ah intaba mana aysan dhicin wax shir ah ama accident ah oo dhacay. taasna waxay tusaysaa in la geliyo juhdi badan iyo amni badan iyo maxay ahayd ricaayo iyo ximaayo badan. marka waxaan leenahay dowladdeena ricaayada iyo حماية الإنكار باهين أرض الصومالية وين الإنسان مدة لبعضنا وحن أسر جدينا شعب الصومالية وحاليا شعب الصومالية خذوا حذركم إن بدل في ريا كيسينا نرشة نديتون كل عتنسر بانيك بجرني مركا وإنه دراسة إذا إنسان محا دعي سيوح دعي أجار كان محا كدعي مركز بدوان كفي حلقة لا تبغى دعي شعب كانوا حاليا هاي دراسية نرشة كونوا شهين دراسية وضعينا دراسية how to live أطلق ميسان then إن شاء الله تعالى حق لا يمكن السلام عليكم. runtii waxaa maanta murugo ah oo inta awada fadhinaa kulli wajigan inuu farxad ka muuqan dad walaalahayna oo wax baranayay oo muddo badan baranayay ayaa la laayay dad ardaa la laayay dad kulli waa dib loo noqdo fiican waxa dadku wada og yihiin halka marka hadaa abaano dibkan haysto waxa waaye waxaas la sameeyay ayaa mar walba dib u noqonaa laakiin ilaa hor u socno dadku loo jeclaa ma ka fikiraan mar walba waxay u soo noqotaa ibadkii dowlad baan arag ibadkii nabad iyo waxaan arko kampala ay u horreeyay marka waa waxa la yaabaa 21 sano waxaan jiraa 21 sano hadda aniga nabadna weligii ma arag marka waa wax la yaabo marka in dibna u noqon aafirno arday Soomaalida la dilay oo Soomaalida la dilay runtii waan daawanay xanuun nahaayo way arday runtii aan qanda ay qabato marka qaraxii wixii aan waa wax laga xumaado marka waxa la ilaahay u naxariisto heeladii dadkii ka guuriyoodeen الله جنة الفردوس إلهي هو كورابيو أنا كده وأنا قد إنت كل قد كم دمان أمد صومالي أبدا برجب وين أيوة كتاي وحنا وحاس جيستي صومالي مقت لصير علاتين كوسنا كرنا الرم مركا وحالنا أيوة أنا وحكي بحكي كرنا يا لنا هل هدف يا هل موقف أنا ويا لنا
iyo midnimo inaan la imaano ma ahan waxbarashada oo kale dadka wax bartay dalkii qiyaamayo badi gadanayo Soomaali baabi'inayo marka waxbarasho kaliya wax ma aha laakiin waa qalbiga inaad tahay qof muwaadin Soomaaliyeed waa inaad dalkaaga dadkaaga og tahay waaye ma ahan in aad wax barato oo kaliya maashan bachelor ka qaadatay master waxba ku tirinayso laakiin waa inaad ogaataa waxa ay tahay dalkaaga wuxuu yahay waa inaad ogaataa marka waxaa leenahay xalku wuxuu ku jiraa anagoo gadaal u noqonin waa inaan hore fiirina كل إبريم وش إمام دون على أوك أنا كهالي من علم غيرك لكن وحاليا هاي إلهي أمبرينه تدكين وح أمة أنا جاهي مجرو مرك أسحنا دولة الصومالية وحاليا هاي نفتين وإلا لدين وحإلا ودين أو ضيعدين تدك الصومالية أو حبرنا يوم مستقبلك ضيعدين نفتين وإلا لدين تدك وفدي إني معنا وإلا لدين الله وحإلا ليه مرك وحاليا هاي الله نحرسته umad Soomaaliyeed waxa ku imaatay dhabrijo weyn waa markii labaad kulli hor loo dilno oo la warqabin waa jiraan oo macallimiin ah iyo professoro iyo generaalo dad la diray aqoonyahanada ah marka aan ma dhihi karo qolo kaliya geesta laakiin waa wax meel dheer waa arin laga fikirayo malaha tamasana laga fikirayo ka badan in dadka waa laay kinis marka waxa leenahay Ilaahay waxaan ka baryaynaa in dadkeena nabad nooga dhigo halkan wuxuu noogu jiraa ardayda Soomaaliyeed oo sida dadkeenu dhaqmay aan u dhaqmin aan u dhaqanno sida dad wax bartay oo muwaadin Soomaaliyeed qalbiga inaan ka dareeno ayaan jeclaan lahaa inaan dalkeena sidoo yahay maanta aan noqonin marka waxa leeyahay arday Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaa isku duubnaato aad u naasantiin وهاي طبعا مدهان دوتي intaasay ku soo koobayaa waxaan aad ugu mahadcelinayaa waqtiga ay noo sameeyay waa inaan intaas ka sii wadno waan filayaa dad fikrado qabo ama ka jawaabi lahaa su'aalaha ama wax ku soo biirin lahaa ay jiraan laakiin waqtiga ayaa nacayinaya marka taasaan ka qaadanayna waxaan ugu mahadcelinayaa marti sharafta ka soo qayb gashay barnaamijkan ee dooda ah sidoo kale waxaan aad ugu mahadcelinayaa dadkan ila fadhiya waqtigooda qaaliga u soo horay in ay fikradahooda ku cabiraan dhibaatada taagan حاكي سيد الوزير لها بصاري نقاري وامدا إلا الله عيني إلا الله عيني وبصاري نقاري وامدا إلا الله عيني lagu qaraabta